waa qiso jacayl oo murugo leh oo wiil iyo gabar Soomaaliyeed ku dhex martay beejka ugu wanaagsan ee Allah subhanahu wa ta'ala lagu caabudo ee xajka. Waa wiil Soomaaliyeed oo reer Hargeysa hase ahaatee xilliyada kamid ah u cumro tagay xajka barakeysan ee Maka. Cumradaas kumuusan ekaan ee waayuhu waxa uu la kulmiyay gabar Soomaaliyeed oo halkaas uu tagay ku nooleed isla magaalana ay ka wada yimaadeen. Inantii kalgacal ayuu u qaaday oo kolkii uu Maka ka soo noqday kagama uu imaan sidii uu ku tagay marka laga reebo inuu soo cumreystay ee waxa uu soo noqday isagoo soo cumreystay hase ahaatee tabaya wax kamid ah waxyaabo noloshiisa ku soo kordhay. aslanba qiimaha shay walba wuxuu ku xiran yahay inta uu ku jiro ee aad heli karto. haddii aad haysatidna badana muhiimad saas ah kuma laha. jacaylkuna waxaa la sheegaa marka uu ugu daran yahay inay tahay kolka labada qof ay kala fogaadaan ee xuduudaha sameyska ah iyo badda mawluhu qalqay ay kala hortaagan yihiin isla markaana hilowgoodu waxaaba uu noqdaa midka ugu sareeya. labadoodiiba aalada internetka ayaa marin u ahayd fariimaha iyo codadka aadka u quruxda badan ee ay isku gudbinayaan. halkaas ayayna sidii kuwa wada jooga isaga warqabeen oo hadba xaaladda ku soo kororta midba midka kale uu la wadaagayay, iyagoo jaceylkoodii iyo xiriirkoodii uu socdo oo fikta maraya ayaa waxaa ku soo kordhay xaalad adduun. mid ka mid ah waxaana soo korortay in wiilka aabihii uu geeriyooday. waa aabihiisii cimrada u diray oo caruurta kalena ay isaga dhawaayeen. geeridaasi waxay wiilka jacaylka la ildarnaa ku ahayd fallaar waayuhu uu ku soo ganay oo meel xun ka haleeshay. isagoo geeridaas la daala dhacaya ayaa culays kale ugu biiray oo kii jacaylkana dhan kale ayuu ka haystaa. naftii uu jeclaa ayaa maalin soo wacday oo u sheegtay in wadnuhu xanuunayo. dhakhtar tag ayuu kula taliyay. dhakhtarkiina war wanaagsan sooma sheegine xaaladeedii ayuu ka sii deeriyay oo wuxuu xal uga dhigay inay qalin gasho. laqal hase ahaatee gabadhii kumaysan raysan. tiro 3 jeer ah ayay qalin martay gabadhii, iyadoo kolkii u dambeeyay la yiri farsamo xumo qaliinadii hore ah ayaa ku haleeshay iyo xididada dhiigga ee wadnuhu ma shaqeynayaan. sidaa darteedna waa in tibooyin lagu geliyaa si noloshaada loo badbaadiyo. sidaasna xaaladeedii ku sii xumaatay. xanuunkeedii waxa uu ku soo beegmay xilli uu geeridii aabihii iyana la murugeysan yahay. waxay wiilka ku ahayd buur labaad oo la kor saaray dushiisa. weliba mar walba waa iska warqabeen iyadoo xiriirkooda uu sii kordhay marba marka ka dambeysana uu u muuqday mid ay suuragal tahay inay ka miro dhaliyaan oo nolosha dambe sida ay u kulmaan iyo halka ay degnaan doonaan ay ka areensanayeen. muddo waxay sidaa ku jiraan oo marba iska warhayaan iyadoo xanuun la tacaalaysa laftiisana uusan wax badan bad qabin ayaa war naxdin lahi u soo yeeray wiilka. inantii hebla way dhimatay ayaa dhabta loo soo saaray. afkala qaad ayay wiilkii ku noqotay. waa adoo taadii awalba la daala dhacayay ilayskii yaraa ee ku iftiimayay halagaa damiyo. qisadaas murugada leh waxaa BBC-da uga warmay maansiyahan Cabdiraxmaan Axmed Cumar Haldis oo ay saaxiib yihiin wiilka ay ku dhacday qisadan. ogaana intii ay inantu nooleed jacaylkooda iyo heerka uu gaaray. markuu saaxiibkii u sheegay in ay hebla dhimatay isaguna maansadan soo socota ayuu ugu baroor diiqay. qisadaas uu goobjooga u ahaa misna jacaylka uu muuqdo in ifka uu kala waday labadii qof ee lamaanaha ahaa. maansada ayaa waxa ay ku bilaabanaysaa sida tan: waqtigu dardar buu yahay, mar kale door buu ka yahay, dahsoonna mar buu u yahay, dunida safarkeeda taxan, nolosha duubkeeda dheer, markani gurigan dugsaday, dawaar adag baa furfuran, dermiyo gogoshii lalaab, labada dhinac baan ka dayay, dacalka midig baan
babaday. Darafka bidix baan ku xigay markuu sayskiisu dumay. Dawanka dhiiladu ka yeedh. Durtaba cabsi baan dhex galay. Dareen cidla aan dhex tagay. Docdii wehelka banaan. Duruufahan yaabka badan. Dharaarahan daalka badan. Xanuun daran baa ku ladhan. Nafteyda dab baa ku shidan. Boggana damqashaa ku mudan. Jidkana idubaaxiyo. Digtoor ma hayee miyaan anigu ku daweyn karaa. Dabiib kuu noqon karaa. Diidmada kaa celin karaa. Wadnaha idaloole haddana idanqanayo. Wuxuu dildilaac ku yimi. Wadnihii ku dabooli lahaa. Diyaarad riyaad ka timid. Dusheeda ma soo martee. Dabaysha dhacday iqaad. Ayaamahan diifta badan. Daruur onkoday iqoo. Dariiqba dariiq ka dheer. Dhabbadu sii durugtayey. Dalcaddu sii korodhayey. Had baan doonayey markuu damalkaygu dhacay. Cadceedda isdaanshanay markuu jawi diiran lumo. Dubkiyo dhaxanta ishela. Qofku dugsoon kalgacal. Qofku difaac qofnimo. Qofku daryeel qof sida. Qofku daryeel ku sida. Hadduu dhakhtar yiri ku dhaco. Hadduu dhakhtar yiri ku dhaco. Waxaa daristaan naxdine. Dhabeel diran bay ahayd. Qof eega dantay ahayd. Dulqaad qof leh bay ahayd. Derbiga samirkay ahayd. Dubaha xumahay ahayd. Qof diin jacayl bay ahayd. Dumarka janaday ahayd. Maxay dun xiriir tiri. Haddaan la isla danhayn. Dabeecad wanaagsanay. Maxay sharaf doora iyo lahayd dadnimiyo xishood. Waxaan u jeclaa dadko darteed baan faraxsanaa. Dhawaana dugsan lahaa. Waxse arrinkaa dalegay. Talada dhakhtarka ku dhigay. Dilaan dhacay kaayihii. Dugsiga noloshee baxay. Dumarka samahee gudhay. Dabeel farxadeed go'day. Shimbirka duulee tagay. Gabalka dhacayee dumay. Dayaxa nuuray lidhay. Laydkii argay dumay. Digriga xubiga tahee. Haddaan dabada qof helo. Xuskaaga ma duugi karo. Daartaad ku lahayd qalbiga. Adaa ku dakaynayo. Dhexdeeda dawaafaye. Deerkeeda xusuusta mudan. Habaasku ma daari karo. Jaceelku qolkuu dhex degay. Albaabka dartaa u furan. Lilaahi ku daabacno. Salaada markaan tukado. Duraansiga eebbaheen. Wuxuu dalabkaygu yahay. Sida daacadda oo kal furan jannada. Haddabaalatee Rabbu durdurkeeda gee. Si aan hadal ugu dambayn. Tixdana dulucdii u lumin. Waxaan dabarkaa ku xidhay. Rabbu ducada ajiib. Waa qiso dad badan oo Soomaaliyeed ay siyaabo kala duwan u arkeen. Isla markaana dunida waxa ay tahay mid hadba dhanka tusaysa. Waa macaan amba waa qaraar. Hadba waa sida uu ku soo maro. Waa magaca cudur. Midka ugu xumee. Dadka moog yahay. haddaba haddii aad nagu cusub tahay daawade isla markaana aad ka heshay qisadan fadlan subscribe inoo saar asxaabtaadana la wadaag fariimaha kala duwan ee muhiimka ah ee aan ku soo gudbino waad ku mahadsan tahay sida aad alaba inoogu xiran tahay